boqoradii labaad ee Ingiriiska Elizabeth waa mid ka mid ah dadka xilliga ugu dheer dunida xilka ka soo hayay, waxa ayna ka qayb gashay Elizabeth dagaalkii labaad ee adduunka, waxa ayna askarta u ahayd darawal. Elizabeth si kooban waa qof kayd taariikheed xambaarsan, iyada oo yar ayaa madaxa taajka loo suray ilaa iyo maalintii shalay 8 Sebtembar sanadka 2022 ay ka dhimato. Haddaba muuqaalkani kagama hadli doono taariikhda gaarka ah ee Elizabeth, waayo qof waliba ilaa saxaafadda oo dhan waxa ay dadka hadalhayaan taariikhdeedii gaarka ah, balse inagu waxaan muuqaalkani kaga hadli doonaa booska Elizabeth ay ku jirtay iyo boqortooyada Ingiriiska waxa ay tahay iyo sida dadka ay u arkaan boqortooyadani iyo sida xaqiiqada ah. Inta aanan u gudagelin ka hor muuqaalka, waxaan ku bilaabaynaa su'aal shaki ah taas oo dadka qaar si aanan caadi ahayn isku weydiinayaan: Queen Elizabeth talow si kas ah miyaa loo dilay ama xilligeedii ayaa la gaaray, ama waxaa go'aan lagu gaaray in gebi ahaanba boqoradda oo dhan in la qariyo? Su'aashani shakiga ahna ee aanan la hubin sida xaqiiqada ah waxa ay imaanayaan xilli isbeddelkani xowliga ah ee awood kala qaybsiga dunida uu ka socdo, iyo dhowaan Boris Johnson oo xilka ka degay iyo maalmo kadib ra'iisul wasaaraha cusub oo Ingiriiska loo doortay iyo in ay isku soo beegmaan dhimashada Elizabeth. Ra'iisul wasaarada cusub ee dhowaan loo doortay Ingiriiska marka ay beeca la gashay boqoradda Elizabeth, intaa kadib in boqoradani ay dhimato, maskaxda dad badan ayay su'aal ku reebtay. Si kastoo ay noqotoba, ixtimaalka ah in si kas ah loo dilay haddii aan ka soo qaadno waxa ay ka dhigan tahay ama laga yaabaa in Ingiriiska marxalad cusub inuu u gudbi doono, yacni fikrado maamul boqortooyo oo ka duwan midkii hadda jiray Elizabeth ay ka hortaagneed ayaa laga yaabaa in loo gudbo aawadeedii in loo dilay, maadaama iyaduna waayeel ay ahayd. Si kastoo ay noqotoba, inagu ma garan karno sida xaqiiqada ah, balse waxa keliya ee aan ognahay waa in meediyaha aan ka maqalnay in ay dhimatay. Haddaba Elizabeth, si aan u fahamno maqaamkeedii, waxaa muhiim inoo ah in aan ogaano boqortooyada Ingiriiska qaabkay u dhisan tahay. Adduunka oo dhan maanta haddii la fiiriyo, waxaa jira dowlado iyo mucaarad iska soo horjeeda iyo dad shacab ah oo hadba qolo taageera, iyo dowladaha reer galbeedka oo xuquuqul insaan iyo in aanan dimuqraadiyadda lagu xadgudbin caalamka fara. Balse Ingiriiska marka la joogo, nidaamka dowladaha ee adduunka ka jira oo dhan waa uu ka duwan yahay. Waxaa ka jiro nidaam boqortooyo iyo laba dowladood, midda dadka ay arkaan iyo mid dadka oo dhan ka qarsoon. Dadka shacabka waxa ay arkaan marka Ingiriiska la joogo baarlamaanka oo go'aano isku raacayo iyo waxyaabaha la midka, iyo ra'iisul wasaaraha oo khudbaynaya. Tani waa dowladda inaga shaashadda inooga muuqata. Dowladda Ingiriisku waa dowlad qoto dheer ah oo gudaheedii jameeco gaar ah oo keliya ay geli karto. Jameecadani gudaha ahna waxa ay ka kooban tahay inteedii badan wadaadada kiniisadaha. Dalka Ingiriisku kama jiro dastuur gaar ah oo u qoran. Waxaa lagu maamulaa arrimaha muhiimka ah ee Ingiriisku uu qaadan doono ijtihaadka iyo aragtida wadaadadani dowladda gudaha ah ee qotada dheer ka tirsan aragtida ay soo saaraan, waayo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo keliya fikirkoodii ama siyaasadoodii ma aha siyaasad dalka Ingiriiska oo dhan ama adduunka oo dhan lagu maamulo. Waxaa laazima in go'aan uu ka soo baxo gudaha dowladda, yacni shaashadda gadaasheedii dadka waxyaabaha oo dhan ka haga. Shaashadda gadaasheediina dadka ku hoos jira waa wadaadadani. Dunida kale maanta, ciddii dastuur ka hor imaada ama diida, magaca argagixiso iyo boqolaal tiimbar oo kale ayaa lagu dejiyaa. Laakiin boqortooyada Ingiriiska wax dastuur la dhahaa oo u qoran ma jiro, iyaga iyo yahuudaba. Laakiin maxkamadaha sida cadaaladda iyo laamaha muhiimka ah ee dadkay u baahan yihiin qodobyo kale ilaalinayo qofba qofka kale xaqiisii ama xuduudiisii inta ay la eg tahay ayaa jiro. Laakiin sida kale dowladaha dastuurada ay qortaan oo kale, boqortooyada Ingiriisku agtoodii dastuur kama qorna. Boqoradani Elizabethna waa madaxa dowladani qotada dheer ee Ingiriiska, yacni dowladda aanan la arkin. Haddaba dowladani gudaha ah ee qotada dheer ee aanan la arkin ma Ingiriiska oo keliya ayay ku eg tahay.
Jawaabtu waa maya. Boqortooyadani sababihii ugu horey ee asalkaba loo sameeyey waxa ay ahayd Ingiriisku dagaalada dheer iyo burburka aanan xadka lahayn ee uu la kulmay kadib ayaa Ingiriisku si uusan hadda kadib dagaal uusan qayb uga noqonin bilcagsi uu u noqdo mid isagaba ciyaarta alifa. Boqortooyo xeel dheer oo ka madax bannaan dowladda dadku ay soo doortaan ayaa la sameeyey. Maanta madaxda dowladaha ugu waaweyn ee adduunka si qarsoodi ah ama si muuqata waxaa laazim ah in ay booqdaan boqortooyadani Ingiriiska. Boqortooyadani asal ahaanna shaqada ay qabato waa mashruucyada istaraatiijiga ah iyo waxyaabaha adduunka oo dhan iyo maamulka dadka quseeya. Waxyaabaha yaryarka ah sida qodobyo basiid ah oo baarlamaanku uu ansixiyey ama laba qof oo xil u tartantay oo midkood uu soo baxay waa waxyaabo dowladda inoo muuqata shaqadeedii ay tahay. Laakiin arrimaha waaweyn waxaa iska leh maamulkoodii iyo go'aanka gaaristoodii wadaadada gudaha ah. Sidoo kale xitaa dadka xilka u soo tartamayo laga soo bilaabo xubnaha baarlamaanka oo dhan mid waliba waxaa qasaba haddii uu soo baxo ama inta uusan soo bixinba jameecadani ayaa soo xulata, jameecadani ayaa soo saarta. Waxaana qasaba haddii uu soo baxo in bayca uu la gala boqorada qof iyaga ka tirsan oo wax ay soo bareen ama jameecadoodii ka tirsan ama yaraantii qof ay iyaga soo barbaariyeen sistamkoodii iyo aqoontoodii. iyo boqortooyadani qof weligii ku hoos noolaa oo keliya ayaa inta badan jameecadani gudahoodii gala. Haddaba nidaamkani isku dhex qasan iyo boqortooyadani waxaa macquul ah in aad isweydiiso maxaa Ingiriiska ku kalifayo sida dowladaha kale, maxaa u diiday in Ingiriiskuna sidaa uu noqdo? Jawaabta reer Anglo-Saxon iyagu waxay isku arkaan in dadka adduunka oo dhan inay ka sareeyaan. Xitaa Yurubiyaanka ay isku qaarada yihiin waxay u arkaan in iyagu ay ka sareeyaan. Maanta Anglo-Saxon qof aanan fahamsanayn ama jamciyadda wadamada Anglo-Saxon uu maamulo cid aanan ogeyn waxaa hubaala amaba aanan akhrinin siyaasadda maalinlaha ee adduunka haddii waqti uu geliyo in uu ku wareeri doono ugu dambeynna stress dartii in siyaasadda oo dhan uu ka harin doono. Waayo waxyaabihii aasaasku u ahaa in qofka adduunka oo dhan in uu kala fahmo ayaa ka qarsan. Sidaana qofka waxa uu ku noqdaa qof shaashada ka fiirsada waxyaabaha maalinlaha ah, bamba qaraxday iyo dhowr qofood oo ku dhaawacmatay iyo ra'iisul wasaare xilka dega iyo mid kale la doortay iyo dad shacab ah oo banaanbaxayo iyo waxyaabo basiid ah oo si maalinlaha u dhaca. Tanina qofka waxa uu u maleeyaa in adduunku uu ku fahmayo. Si kooban adduunka oo dhan waxaa jiro 3 kooxood oo keliya, ma jiro qayb kale oo afraad oo jirta. Kooxda koowaad waa koox iyaga system ama barnaamij oo dhan la imaada, iyo koox jishaa barnaamijka oo xil isku soo sharaxda yacni shaqada qabata, iyo dad iska hurdaya oo hadba dhinac loo leexinayo. Si kale adduunka oo dhan waa sida filimka oo kale. Bilowgii filimka waxaa alifa oo qora qof sanaariistahanina waa dadka daaha gadaaji ama jameecooyinkani boqortooyadani gudahoodii dadka ku jira. Iyaga ayaa mashruuc dadka oo dhan waqti dhow aanay fahmi karin keena, kadibna jilaayaal tiro badan yacni madaxdii ayaa ciyaarta la soo geliyaa. Iyaga ayaa sida ay u dadaalayaan ugu dambeyn ilaa mashruuca waxa ay keenaan qad loo baahan yahay. Dadka shacabka ahna wixii loo jilay ayay daawadaan, marna waa laga qiiraysiiyaa, marna waa laga oysiiyaa, marna waxa ay ku dhowaadaan xanaaq dartii in shaashadaba ay jebiyaan. Yacni siyaasaduna maanta waa qaabkani. Xilliyada qaar qofka xanaaq dartii ayaa laga yaabaa in dadka qaar inuu la dagaalamo, xilliyada qaarna waxaa laga yaabaa in aad uu u qiiroodo. Waa sida siyaasadda adduunka oo dhan ay ku socoto. Madaxweyne walibana xilka inta uusan qabanin ama qof waliba hadda maskaxdiisii ama adiga xitaa waxaa maskaxdaadii ku jiro waxyaabo fiican ee aad qaban lahayd haddii madaxweyne aad noqoto. Laakiin markii qofka halkaa uu tago ama xilka loo doorto ama uu u dhowaadaba waxa uu arkayaa in uusan ka duwanaan doonin madaxdii isaga ka horeysay. Si aad tilaabo horumar leh aad u qaado waa in bilowgii jameecooyinkani
dowladaha qotada dheer ee qarsoon waa in iyagu raali ay ka noqdaan, ama waa in aad noqotaa qof iyaga la shaqeeya oo hadafyadoodii fuliya. xilligaa waxaa dhici karto in dalka oo dhan dhaqaalihiisii horumar aanan marnaba la suuraysan karin in dalka oo dhan inuu ka bilowdo. asal ahaan ma aha madaxweynaha waxqabadkiisii, laakiin dadka isaga keensaday ayaa raali ka noqday barnaamijka ama sistamka madaxweynaha, ama iyaga ayaaba xilligaa laga yaabaa in hadaf ay ka lahaadeen. sida ay hadafkaa u gaaraanna waxaa laasim ku noqotay in madaxweynahani ay taageeraan. jameecooyinkani ama dadkani qarsoodiga ah marka lagu leeyahay waxaa suurtagal ah inaad ku fakarto dad caddaan ah oo boqortooyada Ingiriiska halkaa uun ku kooban. qof aadan ka malaysan karin oo xil haya ama adiga kugu midaba ayaa laga yaabaa in isagaba xerta gruubka inuu ka mid yahay oo dusha sare laga maamulo. faracyada jameecada waxa ay ku faafsan tahay adduunka oo dhan. haddii aan mawduuceeni dib ugu soo noqono, Elizabeth waxa ay ahayd qof aanan marnaba dembi aanan lagu soo oogi karin. waxay ahayd qof aanan weligii suurtagal ahayn in maxkamad la keeno. wixii ay samayso, wixii ay ka damacsanaataba shay sax ah ayuu iyaga agtoodii ka ahaa. haddii ay doonto iyada oo ka madax bannaan dadka waxa ay ku fakarayaan ama doonistoodii, go'aan toos ah ayay soo saari kartaa boqorada. baarlamaankana looma baahno xitaa inuu ansixiyo. waa go'aan meel sare boqorada ka imaaday. haddii ay amarto boqoradani Elizabeth in dagaal la qaado ama waddan in lagu duulo si sharuud la'aana, waxaa waajib ah in amarkaasi loo fuliyo. muhiim ma aha in sabab la sameeyo ama in natiijo ay ka dhalato. amarkeedii sida uu u dhacay waa in loo fuliyaa. yacni si kooban, Elizabeth waxa ay ahayd qof fircoon oo kale ah, balse si toos ah ilaahnimo aanan ugu dhawaaqin. in la taabtana waa mamnuuc, laakiin iyadu haddii ay damacdo dadka sida ay doonto ayay u taaban kartaa. inta badanna gloves ayay dadka ka xirantaa, sababtoo ah iyadu boqorada waa qof karaamaysan. taabashadeedii xitaa dad yar oo keliya ayaa nasiib u hela. laakiin iyagu waxaa suurtagal ah in ay dhahaan taxadarka caafimaadkeedii aawadii ayaa sidaa loo samaynayaa. laakiin qofkii yaqaana Anglo-Saxon iyo Ingiriisku waxa uu fahmayaa in xaqiiqadu sida aysan ahayn. Ingiriiska oo dal boqortooyo ah waxa uu nidaamkiisii gebi ahaanba uu ka soo horjeedaa wadamada daraska uu leeyahay ee Yurub. Ingiriisku marka uu ku fakarayo boqortooyadiisii aanan marnaba dhicin in uu soo ceshto reer Yurubna sida ay wadamada faqiirka u gumaysan lahaayeen iyo sidii dhaqaale iyo technology ay u heli lahaayeen ayay ku mashquulsan yihiin. waa laba koox oo aanan isku hadaf ahayn. midna waxa uu ku fakarayaa manfacadiisii, midna waxa uu ku fakarayaa sida adduunka oo dhan amarkiisii uga shaqayn lahaa. sababaha ugu waaweyn ee Ingiriisku uga baxay midowga Yurubna mid ka mid ah waa sababtani. haddaba dhimashada Elizabeth inta aanay dhimanin ka horba waa qof la diyaariyey qaabka ay u dhiman doonto hadba wixii laga samayn lahaa. haddii habeen ay dhimato ama haddii maalin ay dhimato, haddii xanuun dheer ah ay ku dhimato, ama haddii si degdeg ah ay u dhimato, ama haddii si shil ah sida diyaarad wax ay ku dhimato, wax walba ee xilligaa la samayn lahaa horay ayaa loo sii qorsheeyey. xitaa qaabka dhimashadeedii adduunka loola wadaagayo, meediyaha loogu faafinayo, horay ayaa loo diyaariyey. Elizabeth waa qof qaabka loo doogi lahaa xafladda aaskeedii, qaabka u dhici lahaa, waa qof isaga oo nool ogaa. dhimashadeedii kadibna marnaba dowladda qotada dheer ee Ingiriisku wax isbeddela kuma imaanayo, waayo kuwaasi waa kuwo caqiido fakarka ay rumaysan yihiin dartii u shaqaynaya. si kooban, Elizabeth waxa ay dhimatay iyada oo 96 sano jirto. xafladda geerideediina waxaa la rajaynayaa madax badan in ay ka soo qayb gasho. aaskeedii kadibna sicir badanka Yurub ka jiro, waqti xaadinkani iyo Ruushka oo gaaska ka jartay Yurub oo dhan, xilliyadani oo isku soo beegmay, sidee ayay marxalad cusub u dhalin doontaa? maalmaha soo socda ayaan arki doonaa. booska Elizabethna waxaa geli doona wiilkeedii Charles Prince oo isaguna 73 sano jira. ma bilaaban doontaa dood loogaga soo horjeedo nidaamkani boqortooyanimada, ama wax waliba sidoodii ayay ku socon doonaan? waqti xaadinkani lama saadaalin karo, balse waxaan ogaan doonaa dhowrka bil ee soo socda haddii eebbe uu raali ka noqdo.